السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal meel kasta joogtaan halkani waa shabakada wararka xiriirka news.com. waxaan idin haynaa barnaamij gaar ah oo ku falanqeyn doona xaaladii ugu dambeeyay dalka Masar oo saad la socotaa ama saacadii ugu dambeeyay aynu soo dhaafnay oo xukunkii ka dagay madaxweynihii dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak. waxaan idin soo jeedin idin soo habeeyay anigoo ah Khadar Warsame. dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii gaarka aan kaga hadlaynay xaaladii ugu dambeeyay dalka Masar. salawada socotaanba waxaa dhowr saacadood ka hor xilkii ka dagay madaxweynihii dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak kadib mudaharaado ballaaran oo hadheeyay guud ahaan dalka Masar waasoo looga soo horjeeday xukuumaddii uu hogaaminayay. mudaharaadayaasha ayaa codsanayay inuu xilka ka dago Xusni Mubaarak oo muddo 30 sano ah hayay xilkaasi. Xusni Mubaarak ayaa xilka madaxtinimada dalka qabtay 14 Oktoobar sanadkii 1981 kadib markii la dilay madaxweynihii hore ee dalka Masar Anwar Saadaat isagoo fagaara ka qudbadeynaya rag ku labisan dharka ciidankii ay rasaas oo kaga qaadeen. mudaharaado looga soo horjeedo xukunka Xusni Mubaarak ayaa dalka Masar ka bilaabmay 24 bishii January ee sanadkan 2010 iyadoo mudaharaadadu ay socdeen muddo gaaraya 18 cisho. mudaharaadayaasha ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar sida fagaaraha weyn ee loo yaqaano Tahrir Square ee ku yaala bartamaha magaalada Qaahira iyo sidoo kale fagaarayaasha kale ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee kale sida Alexandria iyo Suez. mudaharaadada looga soo horjeedo xukunkii Xusni Mubaarak ayaa maalinta ka dambeysay ka sii xoogeysanayay iyadoo ay ku soo biiriyeen maalinta ka dambeysay xisbiyada mucaaradka sida xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Masar Akhwaanu Muslimiin, xisbiga Kifaaya iyo waliba qaybaha kale ee bulshada sida dhalinyarada, aqoon-yahanada, hogaamiyaasha diinta sida culimada diinta Islaamka, wadaadada Kiristaanka iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada dalka Masar. mudaharada ayaa intay socdeen waxaa ku dhintay dad gaaraya 100 iyadoo sidoo kalena xabsiyada la dhigay dad aad u fara badan oo iskugu jira saxafiyiinta dalka Masar iyo sidoo kale saxafiyiinta kale ee u shaqeeya wakaaladaha kale ee caalamka. gaar ahaan waxaa albaabada la iskugu dhuftay xafiiska ay ku lahayd magaalada Qaahira telefishinka weyn Al Jazeera iyadoo sidoo kalena xabsiga la dhigay wariyaasheeda iyadoo markii dambe la soo daayay wariyaashaas. telefishinka weyn Al Jazeera ayaa tan iyo markii mudaharaadu ka bilaabmeen dalka Masar si toos ah u soo gudbinayay dhacdooyinka ka socda dalkaas, gaar ahaan mudaharaadada ay isku soo baxeen fagaaraha weyn ee ku yaala magaalada Qaahira ee loo yaqaano Tahrir Square. habeennimadii Jimcaha ayaa mar uu ka hadlay telefishinka ay maamusho dowladda Masar Xusni Mubaarak ayaa wuxuu ku sheegay inuu xukunkii ku wareejiyay madaxweynaha ku-xigeenkiisa Umar Suleymaan laakiin uunan iscasilin, taasoo dadweynihii mudaharaaday aad uga cadhoodeen. haddaba maalin kadib ayaa mar kale madaxweyne ku-xigeenka Xusni Mubaarak Umar Suleymaan ku dhawaaqay inuu Xusni Mubaarak xilkii ka dagay xukunkiina ku wareejiyay ciidamada dalka. war uu ka hadlay telefishinka dalka Masar. mudaharaadayaasha ayaa markay maqleen hadalkaas ayaa markaliya sawaxani qaylo isku dareen iyadoo aad ka dheehan karaysay wajiyadooda farxadda iyo reerinta ka muuqatay iyagoo sameeyay dabaaldeg aad u ballaaran iyagoo lulaya calanka dalka Masar isla markaana isku tahniyadeynayay. wadamo badan oo Carab ah hogaamiyashooda oo muddo badan xilka haysta ayaa wadnaha farta ku haya iyagoo ka baqay inay saameyn ku yeelato isbeddelka ka dhacay dalkaasi Masar iyagoo isweydiinaya saameynta ay ku yeelan karto dalkooga. haddaba waxaa awoodii dalka Masar hadda gacanta ku haya ciidamada dalkaas Masar. laakiin su'aalaha la isweydiin karo ayaa waxay tahay maxay noqon doontaa dowladda cusubi ama arrimaha ay ku dhaqaaqi doonto ama si ay ka yeeli doonto xiriirkii ama heshiisyadii ka dhaxeeyay dowladdii hore ee dalka Masar ee hogaamin Xusni Mubaarak iyo dowladda Israa'iil. sidee noqon doontaa xiriirka dhinaca diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee u dhaxayn doona waddanka Masar iyo wadamada reer galbeedka sida dalka Mareykanka iyo qaaradda Yurub.
dad badan ayaa waxay rajaynayaan inay saameyn ku yeelan doonto wadamo badan oo carab ah. wadamadaas la rajaynaya inay saameyn aad ay ku yeelan doonto waxaa ka mid ah waddankaas Yemen, Suuriya, Liibiya, Algeria iyo wadamo kale oo carab ah oo hogaamiyaashooda aad u cabsi qabaan in arrinta ka dhacday iyagana ay saameyn doonto. dhegeystayaal, barnaamijkan idinku tagalay aan kaga hadlaynay xaaladda ugu dambeysay dalka Masar intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij la mid ah oo anigoo Khadar Warsamo waxaan iga tagay saas iyo nabadgelyo.